إيه هبين كست أنا اللي في كجرا صح ويو أركيسا واصح أدو كم اللي محرتي أنا وكان ها شاركي قابي وبس واي إيه بهالك أنت سيدو بأنك سيدية واصح أياي حقيقة مع ذيك قبل كي مقدشو أحب نو غوي كيم كالي هذا كالي إن هذا أنا بعذير يا ويقول بس واي وكاس عالك وخالد ملك سومالي هنولات سومالي هنولات ميلا جوكتب الله بركي اسمعني توس توس عدو قلنا هوس حاجة بلوس بوس غير أنا دبل بوس ما يقل سوي قبل سنة كداش شريف أبو ويبقر كندا maanta waxaan safar ugu baxay magaalada Bremen qorshahan halka ku tagayo waxa qayb ka ah inaan la kulmo dhalinyaro Soomaaliyeed oo u qaybiyo hadiyada qiimo badan oo aan ka qayb qaadanayo xuska sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliga laga kiciyay gumeystayaashii reer Yurub اسمعني توس توس عدو قلنا هوس حاجة بلوس بوس غير أنا دبل بوس وما يقل سوي قبل سنة كداش شريف أبو ويبقر كندا حسيت كواكا حبسيقة هلا جاية عقيسة هلا سي حبناها كلا جارة حمدها waxaan halka u imi inaan maaragtay ka iibsado calamada Somaliland iyo Soomaaliya sahalka u joodaan waa calamadii Somaliland 1 2 3 4 5 waa kan calankii Soomaaliya 1 2 3 4 5 ومالي وامد وأولي وميرح وطنويو ملبيك وبكتني كابتن soo qabo daniyo oran hadhoodii waa laga tagay soo qabo oo kaasaya halkan waxa uga jeedaan ma sha Allah waa helnay waxa uga jeedaan calankii Soomaaliya kiiso kanana qaadanaya kan waa Puntland waaye kan waxa waaye waa Soomaali galbeed waaye kana waa kan calankii Somaliland kuwa kanana qaadan doona insha Allah kuwa kan saxdiyada u bixin doona waa anigoo shiina culaya waxa ku suganahay magaalada Bremen dhalinyaradii halkaas rag odayaal oo magaalo iska camiroon kaal iska araga marka horta magaciidina baan bilaabayna محمد عبد الكريم إسماعيل magaca koowaad محمد حاج إسحاق عبد الرزاق أحمد عبدي إبراهيم محمد موسى محمد فرح أحمد عبدي محي الدين محمد Muxuudiin Ahmed dhalinyarada tan magaalada tan u shidan magaalo laga sheekan karo maaha haddii idin soo guri ma ka helaya okay halka waa magaalo kaal iska araga dad ladan baana joogan malaynaya dad ladan aan joogan malaynaya marka dhalinyarada hadiyada u qaybinaya hadiyad baa u qaybinaya insha Allah taala horta ii duceeyo meesha ka soo saaray in Ilaahay wax khayr igu bedelo hadiyada waxa weeye nin alla wax siiyay baan ahayo bisha islaantii meer kale culayska ku haystaan ka qaaday ya hadii jarmaadoodu inuu ku badnaayeen waa nasanaysaa Soomaalinimo ina deeqda Soomaalinimo wixii siyaasadda waa meesheeda maanta qabri baan isugu nimi soo lama wada tagid dadku yaa reer la eegay gabadha cidi ahayd ma garanayn halkaas aan ka soo marnay wixii siyaasadda odayaal baa ku shaqale laakiin wixii Soomaalinimo ah qofku wuxuu doono ha aaminsanaado mabda'aado laakiin Soomaalinimada hadiyada aan idin siinayo waa qiimo weyn tahay aniga waa igu qiimo weyn tahay هيجوا سو يعدنا أنت سلوكتان. واي. ما بقشين جبوت ولا هذا إنه كداعي. محل وشي. محل سياسة ما لصقتها. ها محل وشي. ها. إن الله شيء. وحكله وحكله مشران. isku soo noqdo ma loo heshiis kulli hadda wax hadda ka soo baxay oo jirin ma jiraan waxyaalaha lagu heshiis waxa kamid ah bal waxyaalaha horti qodobadii wala sala arkay laakiin bal isku soo noqonay dib bal isku soo noqonay waa jid aan ku jida gacmidaal suuqay waxa kama soo baxayaan meeshaas in oo dib loo madow oo Soomaali weyn nin walba si roo fasirtay inuu horta soo dhaweynaya haye arrimaha isdhexgalka isu socodka technical sifar samaysan waxa lagu heshiiyay ninkaas inkoo dhow waxba sheegteen waa runtii ninka soo sheegayo waxa ay habeenkii shirki waxa ka soo baxay aynu shirno ay ka soo baxday way waa iska meelaha kala jooga iska adag laakiin ininka dhan waa saxantiin laakiin ninka qodob uu sheego ah isdhexgalka dadka in qolo walba la ixtiraamo idaacadii la iska maagi jiray la bahalkayo qolo walba wixii ay aaminsan tahay loo tixgeliyo inta qalbiyada ummadda isku soo dumayaan marka halka waxa hadiyada aan siinaya waxa weeye diidu yaraan male waxa in siinayaa halkii
waxa weeyaan ha sheegin waa garta يورو يكون مقصود دولار xasan lacag miid واي waxaan siinayaa calamadii Soomaaliland iyo Soomaaliya wada socda oo aan soo iibiyay kharash badan ay galay bilaash moodinina laakiin calanku wuxuu yahay ka qaalisan ha walaal waa fiicanahay eeg halakan eega qof walba anigu xataa waa idinku jiraa ya anigu aan dhalay day qof walba laba xiranaya bahalka hadaycinina baalkan waxa weeyaan nin walba laba hayso ka Soomaaliya anoo kana qaadanaya maya kana qaado maya isla gal ha tan ku xiro integration way waa ka ha kana qaado hadaycinina qacma ma santa qaado adna kan qaado warmiyaa la iga xaday bahalihi waa badnaayeen ka Soomaaliland ka soo hormarsiya warmiyaa ilaahay warmiyaa waa la soo oniga yaa soo guray saddexda qof xaalad ku ekaatay وسوق قاسين وسوق انت الله قاسين شينا عليه هذه العلامات ما يدري صواحي يا اصلح حققت مع ذيك قبل كي مقدشو مي هذول ولا ما راح يسوق هذه انت كتبي جيجيجا هذيك اوغادينيا ولا هيا waxa adiga ruusin dawladda ka dawladda kabada gal ما كشف سعاد ما كان Soomaali galmudug Soomaali galbeed ya galmudug wax kana ya kan Soomaali ya ugu dambeeyay qaar kan Soomaali aniga adu xay ka timi ma ni waqooyi ka yimi kaale adaab adeeriya way igu bas waay wakaas calanku khalad ma leeyahay wixii qofku wuxuu aaminsan yahay isaga u taala calanku waa astaan nin walba wuxuu astaantiisa baalkii marka calanka Soomaaliland gubtid sax qofkii reer Soomaaliland wuxuu gooyaa calankii buluug ahaa laakiin marka qofka ixtiraamto adigana ku ixtiraamaya fikirka wax ka calanka siba u diidan hadda yeeshay wax ka fikirka markii ugu horeysa xirtumaya hortaanu calanka ma diidanayn haye waxa weeyaan in la isdhex galana waa wax muhiim ah horta wixii siyaasadda meesha tahay siyaasadda meesha tahay xigto wax walba leeyahay xigto wax kasta oo la noqon karaa waxaan leenahay dee waa caadi Soomaalinimada anu waan ogolahay dadka oo dhan macnaha Soomaali wada ahaado laakiin siyaasadda waa lagu kala duwanaan karaa fikirka waa lagu kala duwanaan karaa wax kasta oo lagu kala duwanaan karaa laakiin waxa weeyaan ta koobaad jamhuuriyadda Allah ku barakeeyo muslimnimo ayna horta kulmisa اعترافك أنت كل صدقين الله كوكين آمين لهاي قفل بقى حج عليها لو قد عيد horta waa ku maasanta calaamada nasisay ana fikirkayga hadii aan ka hadlo horta waa على كبلوغ ما أنت بورس بقى ma iguma horeyn waqti badan waan arkay ما سي ودنا سبسة تورسا waa sii wadanaya واي هي marka nationalism ku waan nacab aniga maadaama inta calanta ay jirtana way jirtaa mar walba maxaa lahayn in la iska soo horjeedo ama la isfuuqo marka laakiin de waan ku in hal calan la wada haystaan ka wada kaga jeclaan lahaa waan ugu faraxsanahay وكان أضيق سوق وابا كعن دوبنا أنا وابي قلوا وابا قلوا بسم الله الرحمن الرحيم هذا القشة بهلا ما يبالو ويقلوا هي أنا أصدق إنه نرتب شيء على أرض ما صرتهاي waxa weeye isdhexgalka oo loo baahan yahay nin kasta isagoo fikirkiisa qadiyadiisa aaminsan tahay marka waxaan ku tarsan lahaa waxaan isdhihi lahaa waxa weeye maadaama in waxaan dad dhalinyaro ah inagoo qof walba qadiyadiisa aaminsan yahay haddana Soomaalinimada wax ka wanaagsan ma jirto aad baan u soo dhaweynayaa fikirkaas oo shiina cadow keenay aad iyo aad baan marka idin rajeynaynaa insha Allah horumar baa idin rajeynaynaa Soomaali meel kasta ay joogaan runtii xaqiiqatan marka ra'yigay ka hadlo waxa weeyaan Soomaali waa Soomaali meel walba joogto laakiin waxa jirta qadiyad iyo aragti lagu kala duwan yahay iyo siyaasad markay noqoto dhul iyo dadku waxba guurku waa ka dhaxeeya dhaqanku waa ka dhaxeeya diintu waa ka dhaxaysa laakiin waxa la isku hayaa maaha intaas waa qadiyadna waxa qof walba mabdiisa iyo ra'yigiisa iyo in lagu ixtiraamo dalkiisa iyo meesha uu ka soo jeedo runtii anigu Soomaali saddex gasho waxba kama qabo imika Soomaali cid kala haysa ma jirto xuduudna ma kala qaybiso laakiin markay calan noqoto ay noqoto ra'yi waxa wanaagsan qof walba in lagu tixgeliyo calankiisa iyo ra'yigiisa anigu ra'yigaas aan qabaa واي هي shiina culi aad baa u mahadsantahay marka hore calanka asiisay waan ku faraxsanahay marka xigto waan ku faraxsanahay in Soomaali ama Somaliland in isku socodka dhalinyarta la furo iyo in oo
isdhexgalka wariyaasha iyo dhammaan oo wax dhibaato ka iman marka waxaa waaye siyaasadda waa lagu kala duwanaan karaa wax dhib ma keeni mayso ma fahmino laakiin waxaa fiican in islaamnimada la qadariyo oo isdhexgalka iyo dhammaan in macnaha oo la sii wado marka waa ku faraxsanahay warbixinta fiican oo hadda ka soo baxday shirka السلام عليكم مقاعد أحمد بيان أرتاع دنير وحي لويشي واحد وجاله دنير الصوماليد معه أصبحي سياستنا وحكي فايدي هرتا دور قضي يعرض هذا كلياته لكن واحد معها من الصوماليات أما دنير الصوماليات marka dhanka Soomaalida waxaan ugu baaqayaa in siyaasadda waxa kol ma shayfeen wajto ay ka shaqeeyaan والسلام يا ولادك شينة وبرنامج سوق مقابية نين على وحسين مركب وحوي دتك وموحدين هالإله وسجود أعماش وضسلوا أقبلوا من قلوب تجارات سنتهاي استحقالك integration كرهير نمدنا لقتكوا وحرتيني يا سومالي وحنا فرتيني يا قول يا منيمو على كاماركتا سؤالك سؤال ما weligay ma dhibaateen laakiin weligay ma xiran haddii jamhuuriyadda Muuse bari اعتراaf keeno ninka ugu horeeya oo ka liibaanayanahay marka calanka horta calanka waan ku xiri karaa laakiin inaad buuxiso ma garanaysaa Soomaalilandnimada muwaadiniinta ma keen waa caadi calan way adu keenay waa sax oo ku xiray habeen kasta anoo leef ku jira way u arkaysaa waa sax adu ka waliga ma xirtay anu kan shaarkayga abay bas way bahalka inta sido ba anaka sidaya waa sax waa salaam war horta calanku sidiisaba waa mar ma garanaysaa laakiin haddii la doonayo in caadi loo heshiiyo waa in caadi loo heshiiyaa waka ma inaga hadda qurbaan joognaa halkan Soomaali baan ku nahay qofku wuxuu Soomaalinimo ku waayo hadda Djibouti 3 sano اعتراف haysta Soomaha 4 sano Soomaha haddana waa Soomaali xageena ka ah Soomaali ha noolaato meel joogtaba Allah barakeeyo meel joogtaba qalbigooda Allah ay suxaar aad baa u mahadsantihiin